ahayd democracy waa kelmad laba kelmadood oo af Greek ka kooban oo dee af Carabi lagu macneeyo la mid ah xukm shacab af Soomaalina mala shacab iyo xukumkaba dadooda inuu isticmaalaan xukumkii shacabka ama xukumkii dadweynaha laakiin waxay yiraahdaan professor muslim oo la yiraahdo Jaafar Idris ayaa wuxuu yiraahdaa waa ereyga kaliya ee magac aan xaqiiqo lahayn buu yiraahdaa yani waa magac aan xaqiiqo lahayn way dunida lama arag buu yidhi meel shacab dhami wax xukumo ma jiro ala kulli xaal waa nidaamkaasi ku salaysan waa nidaam siyaasi ah sidoo hadda u yaalo ee dunidu isaga dhaadhicisay arkaan ay ka tahay in la kala saaro saddexda sultadood ama saddexda maamul ee sultada qadaaga qodo iyo sultada dawladnimo ama xukuumadda wasiirada iyo ra'iisul wasaare iyo waxay la noocay gaar noqdaan maanta nidaamka dunidu qaabku u yaalo waxay yiraahdaan dimuqraadiyaddu saddex qaybood baa loo qaybiyaa mid dunida kama jirto oo waa tii erayga dhabta ah uu sheegayay oo aan shacabku wax xukumo Athens ba ugu dambeysay bay yiraahdaan xataa Athens markay ka jirtay bay yiraahdaan ma ahayn dimuqraadiyad waayo shacabka oo dhan looma wada ogoleen dumarku kuma jirin caruurtu kuma jirin adoomuhu kuma jirin citizenshipka rasmiga qofkan lahayn kuma jirin waxay ahaayeen koox yar oo kooban oo filosofara iyo in dad oo la socotay ka marka la soo dhaafo labada nooc kale ay leedahay waa nooc la yiraahdo nidaam al-jamciyaat hal dawlo oo qura dunida kaga dhaqanta Switzerland wadanka la yiraahdo weeyaan waa saddexdii sultadood oo koox qura isku wada hayso oo ah baarlamaanka ayaa qudaaduna ka tirsan yihiin madaxweynuhuna ka tirsan yahay wuxuu dhamaba koox qura ku soo ururta deetana nidaam al-jamciyaat nidaam la yiraahdo si kala daadaga qaybteeda kale waa qaybtan loo yaqaano parliamentarianka oo yana laba qaybood u qaybsanta qayb parliamentarian qayb raasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaana wanaag iyo sama ma yaqaano cod dheeri buu yaqaana waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa haduu xun yahay oo uu cod dheeri haysto waa xalaal haduu san yahay oo aanu cod dheeri haysanin waa xaraam ariga ma fahmi karaysaa مثلا khamrigu waa maxay cid tidhaahdo wanaagsan ma jiro dunida ku nool maya laakiin cod dheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homofilku cid amaan dama jirto laakiin hadduu cod dheeri haysto isagaa soconaya idan markii Yurub diimuhu ay tira bateen ee afkaarta tira badatay ee wax walba tira badatay qaab ay wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cod dheerida yaale dabeetana cidii 51% heshaawin inay meesha maamusho islaamnimadu ka way ka gadisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dajiyay laakiin hadaad si kale u eegto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastuur ay dhaw 2/3 markii hore ay ku dajiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa ka hadii la isla dhaafo liberalism ko aqeeda la rumaysay aan marnaba laga bixi karin sayagu rumaysayn ayuu hoos yimaada inaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa kitaab oo sunnah marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya marka waa la dooran karaa hadii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gadisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu a'lam